sheekadan waxay ku dhacday haweenada ka mid ah. Waxaan ku soo daahay gabar aan saaxiib ahayn gurigeeda. Haweennimadkii xilli ay ahayd 7 saac haweennimo ayaan soo dhaqaaqay. Waxaan maqlay sawaxan qof qeylinaya wadada hareeraheeda. Aad iyo aad baan u yaabay oo waan fajacay. Waxaan arkay wadada qayb ka mid ah in meel ay qiile ka soo yeerayso. Haweennimadkii oo idil waan walwalay. Durbab waxaan isku day in aan fiiro meeshaas godka ah. Waxaan arkay qof aad iyo aad u qeylinaysa. Qof dumarna way ahayd. Waan walwalay laakiin waxay u ekeed qof laga cabsanayo oo kale. Aad iyo aad baan u fiiriyay oo su'aalo ayaan weydiiyay laakiin way iga sii jawaab weysay. Waxay u ekeed qof cabsan oo kala cabtooy ah. Aad baan u yaabay kadibna cabaar ayay fiirisay. Anigu waxaan sabay waa garan waaye wayna igu qosashay. Aad iyo aad baan u yaabay. Qosol tiro badan ayay qosashay. kadibna gacmo cijileh ayay la soo baxday. Anigoo u dhan waa yaabay. Gacanteedana aad iyo aad bay u dheereed. Waxaan isdhahay miyay ku cuni rabtaa oo miyay rabtaa inay ku disho. Dadna ma aysan joogin meesha. Aniga godka ayaa ku fiirinayay. Gacanteedan aad iyo aad bay u dheereed ilaa ay soo gaartay wejigayga hareerihiisa. Kadibna waa isaga laabatay. Waan soo cararay anigoo fajacsan. Waxaan imid guriga albaabkiisa. Cabaar ayaan neef tuurayay. Ilaahay waxaan ka baryay in meeshuu iga soo badbaadiyo. Haddii i cuni lahayd gabadhaas maxaa igu dhici lahaa.